munaasabadan sida heer saraha loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gudoomiyaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa xeerarka ku kala wareegayay gudoomiyihii hore ee degmada Warshiq isagoona gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiq oo xilkiisii si rasmi ah ula wareegay intii ay socotay munaasabadan ayaa waxa bandhig faneed aad u qurux badan soo bandhigay kooxda fanaaniinta Balcad Band oo ka dhisan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe senator Zamzam Daahir Maxamuud oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreyn munaasabadan ka hadashay ayaa waxa ay uga mahadcelisay gudoomiyihii hore ee degmada Warshiq shaqooyinkii muhiimka ahaa oo uu soo qabtay muddadii uu xilka hayay iyadoona dhanka kale hambalyo u dirtay gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiq gudoomiyaha xilka ka tagay ee u soo shaqeeyay shacabkiisana aan u mahadcelino inta uu la joogay waxqabadkiisa iyo dadaalka oo muujiyay aan gudoomiye aad u mahadsan tahay meeshii aad joogto meel ka fiican inuu Ilaahay ku geeyaan Ilaahay kaaga baryeena sidoo kale waxaan rabnaa in maaragtay aan anaga safarkeena aniga xildhibaanka kaliya ma ahayn inaan xifada ka soo qayb galno waxaan noo wehelisay in maaragtay aan dhiirigelin u sameeyno shacabka degan degmadan Warshiq iyo isxog waraysi intaasi kadib xildhibaan Cabduqaadir Carabo Ibrahim oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub isagoona ku bogaadiyay shaqooyinka adag ee horyaala alana uga bariyay in uu u fududeeyo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qaybta 27aad ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle haday ahaan lahayeen saraakiil haday ahaan lahayeen saraakiil xigeenno haday ahaan lahayeen dabley ma suura gali lahayn inaan halkaan fadhino noola heeso baashaalno wis'ood ciidamadan la'aantood ma suura gali lahayn ciidamada quruxda badan ee halkaan fadhiyo oo amnigeena sugaayo kuwa jidadka noo taagan ee dhaxanta mataqaanaa ku dhacayso la'aanteeda meeshaan ma fadhinin waa inaan u mahadcelinaa sacabna siinaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda degmada waa degmadeenna mahadcelinta ciidankaas kadib gudoomiye waxaan rabaa inaan mataqaanaa gudoomiye Cumar aan laano mataqaanaa soo dhawow si dhaw ku dhimeena soo dhawow Hirshabeelle tahay waa ku baahan yihiin dalkan iyo dadkan meesha wax ka qabanayna inaan ka qaban sidoo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cabdiweli Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha degmada Balcad mudane Qaasim Cali Nuur Furdug oo iyagana ka hadlay munaasabadan ayaa la dardaarmay gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiq iyagoona sidoo kale u mahadceliyay gudoomiyihii hore aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan xilwareejinta ay ku kala wareegayaan labada gudoomiye aadka u qiimo badan in badanna ka soo shaqeeyay degmadan Warshiq ee qadiimiga ay tilmaameen fanaaniintii meeshan wacdaraha ka dhigay ay ku tilmaameen degmo qadiimiya kuna caan baxday cilmiga diiniga aad ugu caan baxday خير الله سيو علماء كسر قيب قاتي إني علماء الصومالية بدن كسر كبرتي علم الدين جهاتهم كبرتي خير الله سيو الله شرفه الله قلنا حريص إنتي جريتي لولا قدومية عصر وينه أحمد حسين إيوه قدومية عن سقوطين إنه ما دعيه عن حلك وكلا ورجع ولكن شيخ عمر محمد وحان له هاي آب أياد أقوم سنتين هرمر كان قيمة على ينبت جليدا
aadka u qiimo badan xafladan aad u soo aruusheen aadka u qiimo badan ku kala wareejinaysaan labada gudoomiye xilkooda aan ku kala wareejinayno. waxaan rabaa inaan hadalkayga ku bilowdo gudoomiyahayagii hore Cumar Maxamed Cumar Al-Khayr inaan yiraahdo gudoomiye degmada kama tigin walaalka ku wareejisay inaad ka tagtaan lagama raba inaad garab taagnaataan laga rabaa meeshay ka dhimantaa ka dhamaystirtid meeshay u dhimantayna u tiraahdid meeshay qabyada ku aheedna u tilmaanto tiraa bartaanay qabyakeeda ka dhamaystir waxaan rabaa gudoomiyaha cusub asina inaa yiraahdo walaalka kama maarantid waa hormuudkaadii ka horeeyay waxyaabo badan og anigoo ogahay labadiinaba inta ka qabateen degmadan haday tahay amni haday tahay isku xir bulsho haday tahay dalxiisayaal amba nabadgelin in la nabadgeliyo dadka loogu yeero inay deegaankan u yimaadaan inay ku dalxiisaan waxa ogahay labadiinaba inta ka qabateen maada idinka gaarto waxaan rabaa inaan si guud ahaan ugu mahad celiyo cidii agaasintay xafladan sharafta leh qiimaha leh qaayaha leh ee sida heerka sare loo soo agaasimay iyo guddigii iyo maamulkii oo u horeeyay gudoomiyihii hore ee degmada iyo ku xigeenadiisa iyo ururadiisa iyo bulshadiisa waxa la ilaahay maada idinka gaarsiiyo waxaan rabaa inaan yiraahdo balcad oo ah hooyadii warshiiq iyo warshiiq waa mid waa dad isle waa deegaan isle waxa la garab taaganahay waxa allaaliyo wixii aan ugu roonahay inaan la garab qabanno haddana waxa uu ballan qaadaynaa oo waqti dhow insha Allah u sii doonaa idaacad FM oo warshiiq oo dhan laga dhageysto aan u tababarno dadka ka shaqeyn lahayd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Axmed Meyr Makaraan Axmed Faal gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe oo ugu dambeyn soo xiray munaasabadan ayaa waxa uu dardaaran adag u jeediyay gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiiq isagoona ugu dambeyn xilalkii u kala wareejiyay gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub ee degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Mas'uulka hadda degmada soo koraayo meesha ay joogtay iyo meel ka fiican inuu sii gaarsiiyo dawladda ilaa wareejinayna ninka ka degay Cumar Maxamed Cumar asigana walaalkay waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo sida uu sheegay walaalkay Axmed Daaci oo gudoomiyihii hore degmada Wadajir lama dayaci doono hadduu Ilaahay yiraahdo Hirshabeellana hadduu Ilaahay yiraahdo booskii Ilaahay ugu calfo ayaa la geyn doona hadduu Ilaahay yiraahdo anagoo la kaasho doono madaxdii naga sarreysay. Axmed Maxamed Shukur Axmed Socdaal Dalsan TV degmada Warshiiq gobolka Shabeellaha Dhexe.